كالي ونقلا قيب قال لباتن قوة كسر وريكتي استديو تبن كمي قبل قابضة ما ننتهى سي وحا أي أقول قليل إبراهيم سليمان ومسؤول كترسان حسبك أدو دبالدق لسمين دولا ما ننتهى استديو تبن كايتهاي oo runtii anigu isleeyahay waxa uu noqon doonaa lolatus marka runtii waxaan leeyahay si dhaqsaa taageerayaasha xisbiga kulmiye ee dhammaan qurba joogka reer UK in ay si ballaaran uga soo qayb galaan waana maalin aad iyo aad u muhiim ah oo shucuurtii iyo horumarkii aynu u dabaaldegayno wixii aynu achieve garaynay 20 sanadood faadina amran waxa ay ka mid tahay gudida qabanqaabada waxaan dhammaan ugu baaqayaa in ay dhammaan ka soo qayb galaan maalinta aynu muujinayno dimuqraadiyadeennii iyo go'aansitaageennii 20 jirsaday injineer maxamed axmed balayax waa gudoomiyaha qabanqaabada gudida qabanqaabada 18 May haddii aan nahay gudida qabanqaabada oo ka kooban dhammaan xisbiyada dhammaan ururada bulshada iyo hawldoorka iyo aqoon-yahanada Soomaaliland ee ku nool wadankan Ingiriiska waxaanu ugu talagalnay inaynu si ka duwan oo maadaama ay 20 guuro tahay aanu sameeyno xafladan waxaanu ku hawlanayn in muddo ah oo aanu sameeynay addresska iyo maxay ahaatay information-ka u baahan tihiin oo dhan waxaad ka helaysaan halkan waxaan ugu baaqayaa bulshooyinka reer Soomaaliland inay aad iyo aad uga soo qayb galaan munaasabadan xafladan waxa dhacaysa 18 May waxa ka dhaci doonta hadii la yiraahdo Old Place Yard opposite the House of Lord محمد إبراهيم آدم wuxuu ka mid yahay madaxda xisbiga mucaaradka ah ee UCID dadweynaha Soomaaliland meel kasta ay joogaan gudaha iyo dibadda waxaan idinku boorinayaa inaad ka soo qayb gashaan oo muujisaan codad kaalaya oo nagala qayb qaata ayay leeyihiin madaxda xisbiyada jamhuuriyadda Soomaaliland iyo jaaliyadda Soomaaliland ba xafladaasi